السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لا غالي غواني سلامي عن وانتي روائنا هل كان كوضا باللونا برنامج فيها إلى الطريق أما تلوين سوجيدين إلى الماشان كبلاونا سنعودنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام سيدة سلامة إن نعودنا تلوين عن لو ذاكينا ولا لها خالقة ومركز نوغري وقت يوذا إيو عنده ذبا أساسنا وانيجي ما دخلنا ترى الغفر إذا ما أنت هل كان كذاين وحوي سيدان كون قنقرا قفر حبدا معناه سيدان كون قضاء خف مركز سفر حبدا وفر حديث إجيوكتهاي مركز تيجي صدق بدن صوص على وان رجينا إن النقطة قفر حبدا midka koowaad waxa weeye inaad laga helo iimaan waa in laga helaa qalbigaaga iimaan midka labaadna waxa weeye ku qanac xukunka alle subxaanahu wa tacaala midka saddexaadna wuxuu noqonayaa ka nadiif qalbigaaga xasadka iyo xaqdiga midka afraadna waxaan leenahay ku dadaal akhriska qur-aanka waana saaxiibka wanaagsan ku dadaal akhriska qur-aanka waa saaxiibka wanaagsan الله ugu mahad celi nimcooyinka siiyay oo waxa kamid ah nimcooyinkaasi aragga iyo maqalka iyo qalbiga diinta caafimaadka iyo nolosha aad nooshahay iyo nicmatul islaam ee ugu weyn tahay mid lixaad oo ah ku dadaal inaad noqoto qof deeqsi ah macnaha qof dadka badanaa wax siiya haddaa wax haysato si aad u hesho laabo furan oo ku jecel midda toddobaad ay noqonayso u fur wajigaaga dadka kula hadlay hadalka wanaagsan u furto wajigaaga midda shanaad mid ziyaado ah iska ilaali inaad cadowgaaga tusto xanaaqaaga taasina waa intay doonayaan marka walaalayaal waxaan filayaa inaad noqon doonto qof farxad badan intaas waxaan oo dhiman qodobo kalena dhiman waxaan ka sameyn doonaa part 2 insha Allah tan waa part 1 insha Allah waan rajeynaa inaan noqoto qof farxad badan aad iyo aad farxadiis noqoto hadda qodobada ilaaliso